الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. رب سبحانه وتعالى توفيض الله نوافجيو حلاشك وقوطا وحاران تكفق هذا إلهي نقدر سبحانه وتعالى وحيالها حاران تأه كسقنا هذا كتابك إلهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام إجماع أمة إسلام علماء إسلام كأه وحاكمده رباضة أيا كمده رباضو أرجع اللغة العربية هي وحالا كاني زيادة يبتصش إن مارتي من الربا وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله إلى سيره سبحانه وتعالى النماء والزيادة وحدتكو الدنيا دون يحول الدون دراد هذا أي أصل كمارتي رباضو كل سنتهاي لغة اسكندنافيان كرنتا ليرادا رباضا af Soomaaliga waxa lagu fasiray lagu Soomaaliyeeyay dursaar waa la yiraahday faa'iidatul faa'idana waa la yiri laakiin waa khasaaratul khasaara faa'ida ma waa khasaara oo khasaara yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat ilaahay baa yiri yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat ilaahay subhanahu wa ta'ala ribada barakadu ka qaada jalla wa ala sadaqa qofka dhibaataysan baahan saboolka ah cayrta ah in wax lagu sadaqaystaa loogu tala galay laakiin in dhigiisa magaranaysa la nuugo ama laga siibto ama dusha laga sii saaro waxa uu san awood u lahayn loogu matala gelin laakiin systemka ribad wuxuu ku dhisan yahay ninkii waayay oo dhibaataysan oo sabool ah in saboolnimada la sii kordhiyo oo magaranaysa dhig miirad lagu noqdo oo ma ayaa ku dhisantay ribadu aqliga way ka fogt shariicadana way ka fogt naxariistana way ka fogt ribadu saan sheegnay aayadaha ku soo degtay kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala farabadan khaasatan aayaadka suuratul baqara u dambeeya Ilaahay subhanahu wa ta'ala ribada ayuu ku soo dejiyay wuxuu Ilaahay sheegay xumida ay leedahay wuxuu sheegay khatarta ay leedahay wuxuu sheegay sida uu ciqaabayo wuxuu sheegay ribada inuusan barakaynaynin الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إلى وحي سبحانه وتعالى القرآن كل شيء كوحدة ما الربا دعونا يأكلون الربا مضارع فيري يدل على التجدد والاستمرار إن الربا تشرد دون تو آيات تمامس ربا دتك عنيا أو عند كلية ولا لقمة أكل قالوا قد عربي استعمال قرآن بالوجه ده هل اللي بيست جوري هلا قدست dhulka laga googlado gawaariha laga iibsado waxa weeyaan raashin ahaan loo cuno waxa weey waa isticmaalkeeda dhamaanteed ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu sheegay maalinta qiyaamada marka la imaanayo dadka kale inay ka duwan yihiin waxay u imaanayaan maalinta qiyaamada ayagoo calooshu weynaatay sidii qof tal ah ama cabsan ama daroogaysan dhacdhacaya ay imaanayaan وهذه علامة من علامات المرابين dadka ribada cuna calaamadood bay tamitahay calaamooyinka rasuulka naga calayhi salaatu wasalaam waxa lagu tusay xabaasha si loogu cadaabayo dadka maaratay reentada iyo ribada iyo dadka dhiigooda maaratay nuugo ka jiita nabiga waxa lagu tusay xabaasha si xadiiska ku soo saxiixa imaam bukhari saxiiso ku soo wariyay xadiiska samurata ibn jundab inuu maaratay qofka reentada cuna ama ribada inuu asagoo ku jira wabi oo dhiig ah marka wabiga dhiiga uu dabaalanayo wabiga dhiiga waa dhiiga dadka ka nuugi jiray weeyaan masaakiinta ayuu dabaalanaya markaas uu doonaya wabiga dhiiga inuu ka soo baxo marka uu dhiiga wabiga ka soo dhawaado daanta u soo dhawaado ba afku kala qaadaya faqarafahu rasuulku yiri afku kala qaadaya nin baa taagan daanto markaas uu dhagax afka u gelinaya dib baa ugu celinaya meeshuu ka yimid saas buu ku jiraya ilaa qiyaamada ay gaarayo xabaash ayaa lagu ciqaabaya rasuulka naga calayhi salaatu wasalaam حديثيسا waxa weeyaa waxa ku soo waxaad looga naxo ribadu inay tahay ribadu qayb faraban bay u qaybsantaa waxay u qaybsamaysaa maanta ugu khatarsan dhaqaalaha dawliga ah iyo dawladaha ayay u noqotay ribadu aasaas u noqotay waxa weeyaa riba duwal dhaqaalaha in laga sifeeyo
حديثك وشيغاي شي علي النبي waxay kamid tahay calaama min calaamaat an-nubuwah ee nabigu uu sheegay ribadu inay faafi doonto akhru zamanka qofkii aan toos u cuninin inay magaraysa habaaskeeda iyo boorkeeda qiiqeeda ku soo baxayaan maanta systemkan iyo nidaamka ka jira adduunka ee caalamiga ah asaaskiisu wuxuu ku qatomaa ribada ayuu ku dhisan yahay ama reenta ayuu ku dhisan yahay si looga saafi gareeyana aad bay wadagta riba duwal ee banuugta World Bank oo adduunka aad arkaysid maar dawladaha masaakiinta intuu dulsaar dusha ka saaro oo riba dhex geliyo ayuu ku lagu adoonsanaya dawladaha waaweyn umadaha dhaqaalahoodii iyo energy-goodii iyo wax soo saarkoodii iyo xooggoodii waxyaalaha dawladuhu adduunyada lagu adoonsado umadaha ay kamid oo caalamka dhibka haysata ayay maanta ribadu kamid tahay waxa la yiraahdo ribadu waxyaalaha ay maaratay khatarta ay ku leedahay nabigeena kaleey salaatu wasalaam oo nooga digay quraankuna oo ka digay waxay tahay dhulmiga ugu weyn oo insaanku uu galo insaanka ka galo ayay ribadu ayay tahay maart ilaahi wuxuu leeyahay ayuha alladina aamanu taqullah wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin min Allah wa rasulih dadka ilaahi rumeeyo soo mu'miniin matiin wa dharu ma baqiya min ar-riba faraha ka qaada wixii riba ah waqti aayadku soo deganayaan wixii ka horeeyay ilaahi waa dhaafaya laakiin waxa laga bilaabay imika waxa weeyaan bag cusub bilaaba fa in lam taf'alu arrinka hadaad samay weydiin ee riba aad ku dhaqantiin ee xoolaha ku kala dhacdiin fa'adhanu biharbin min Allah wa rasulih ilaahi ya rasuulkiis dagaalkooda u diyaar garooba ma ilaah baan la dagaalamay karaynaa ma rasuulkan uu la dagaalamay karaynaa barakallahu fiikum masala khatara masalatu riba wa qayba faraban bay leedahay riba al-fadl wa riba an-nasi'a wa riba ad-duyun wa riba az-ziyada nolosha tagalgalat fi al-hayat laakiin shacala wuxuu yiri waqti waa ka dhacay aniguna halka waan joojiyay